Windows, macOS iyo Linux waa saddexda operating system ee ugu caansan kuwaas oo loo isticmaalo computerska. Muuqaalkan waxaynu isbarbardhig ku samayn doonaa saddexdaas operating system iyo sababta ay Linux u noqon karto operating systemka kugu habboon. Ku soo dhawaada muuqaalkan maanta saaxiibayaal. haddaynu ka yaro horaysiino sharaxaad yar OS ama operating system waa software gaar ahaan system software kaasoo shaqadiisu tahay inuu maamulo qalabada hardware-ka ah ee ku jira computerka. waxaana sidoo kale qabtaa shaqooyin badan oo ay ka mid yihiin file management, process management iyo kuwa kale. haddaba waxaa jira operating systems badan oo caalamka laga isticmaalo kumana koobna keliya saddexdan operating system ee Windows, macOS iyo Linux. oo saddexdani waa kuwa ugu caansan. xitaa adigu waxaad samaysan kartaa operating system ku gaar ah inkastoo ay tahay process hawl badan oo waqti badan u baahan, haddana waad awoodi kartaa inaad samaysato. haddii aan isbarbardhigno saddexdan inagoo mid kastaba tilmaamayna faa'iidooyinkiisa iyo meelaha uu ku liito, ugu dambaynna si gaar ah weegi doona waxyaabaha ay Linux dheer tahay operating systemska kale. aynu ka bilowno Windows. Windows oo ah operating system ay soo saarto shirkadda Microsoft waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay OS ku habboon qofka bilowga ku ah computerska, waxaana leeyahay interface fudud oo si sahlan aad ku isticmaali karto. sidoo kale Windows waxaa leeyahay tiro aad u badan oo softwares ah, yacni aad ay u badan tahay softwarada ku shaqeeya Windows marka loo eego operating systemska kale. haddii aad tahay gamer, Windows waa operating systemka kugu habboon. meelaha Windows ku liito waxaa ugu muhiimsan ammaankiisa isagoo ah mid u nugul fayrasyada iyo malwareska. sidoo kale Windows waxaa la yimaadaa softwares badan oo aadan u baahnayn inaad isticmaasho, kuwaas oo kaa qaadan kara storage badan. macOS operating systemkan oo ay soo saarto shirkadda Apple waxa uu caan ku yahay dhisaynka quruxda badan ee shirkadda Apple u qaabaysay. sidoo kale waa mid aad si fudud isla ku isticmaali karto oo sidaa uma sii adkaa inaad markiiba la qabsataay. waxyaabaha kale uu macOS ku wanaagsan yahay waxaa ka mid ah ammaankiisa isagoo ka ammaan badan Windows. haddaad isticmaasho iPhone, iPad iyo qalabada kale ee soo saarto shirkadda Apple waxaad si fudud ugu xiriirsan kartaa computerkaaga macOS, taasoo hoos u dhigi karta in waqti badan kaaga baxo inaad ku xiriirsato qaababada kala duwan. meelaha hoosna macOS ku liito waxaa ka mid ah inay xadidan tahay softwarada lagu shubi karo macOS. sidoo kalena computerska ku shaqeeya macOS waa kuwo ka qaalisan qiime ahaan kuwa iyaga kale. Linux operating systemkan ma jirto cid khaas u lihi, waxaa la sameeyey ninkan oo lagu magacaabo Linus Torvalds, mana jirto shirkad gacanta ku haysa oo Linux oo waa open source. qof kasta heli karo koodhkiisa, arki karana wax kasta oo ku dhex qoran, kana bedeli karo wax kasta uu rabo. faa'iidooyinka ugu waaweyn ee Linux ka dhigay mid aad loo jecel yahay waxaa ka mid ah inuu yahay mid daahfuran oo qof kasta waxa uu doono ka bedeli karo, halka operating systemska kale ay yihiin kuwo ay shirkado khaas ahi gacanta ku hayaan. Linux waa operating system aad u ammaan badan, balse ma aha kan ugu ammaanka badan. waa operating system aad u design garaysan karto sidaad jeceshahay. sidoo kale operating systemka Linux waa kan ugu fiican ee lagu baran karo laguna isticmaali karo cyber security-ga iyo hacking-ka. meelaha uu Linux ku liito waxaa ka mid ah in mararka qaar ay dad badan ku adkaado inay fahmaan oo ay si fudud u isticmaalaan, iyadoo ay jiraan qaybo ka mid ah Linux oo qaab fudud loo isticmaali karo sida Ubuntu. haddana si guud Linux waa operating system ka yar ka kan kuwa kale isticmaal ahaan. sidoo kale softwareska lagu isticmaalo Linux way ka yar yihiin tiro ahaan kuwa lagu isticmaali karo Windows iyo Mac. haddaba maxaa ka dhigaya operating systemka Linux mid aad u baahan tahay inaad barato oo aad isticmaasho? waxyaabahaas waxaa ugu weyn ammaanka Linux. haddii aad tahay qof raba inuu ilaashto xogaha iyo ammaanka computerkiisa, waa muhiim inaad isticmaasho oo aad barato operating systemka Linux. xilligan oo ay caalamka aad ugu soo badanayaan khataraha iyo weerarada hackingku, waxaa aad u muhiim ah inaad ilaashato xog kasta oo kugu jirta computerkaaga. sidoo kale haddii aad rabto inaad barato ethical hacking-ka waa ku muhiim. waxyaabaha kale aad ku dooran karto Linux waxaa ka mid ah inuu yahay OS ka fudud culays ahaan kuwa kale. haddii computerkaagu yahay mid leh RAM kooban ama mid tabar yar, Linux waa option fiican oo aad u guuri karto. haddii aan ku daro hal qodob oo laga yaabo inaad isweydiinayso, waa maxay yihiin waxyaabaha laga bedeli karo Linux ee aan laga bedeli karin kuwa kale ama operating systemyada kale? dabcan background-ka iyo waxaas maahan. waxyaabahaas haddii aan dhowr ka soo qaadanno waxaa ka mid ah inaad kor u qaadi karto awoodda CPU-da ama GPU-da computerkaaga. operating systemska kale kuma ogola ama wax yar unbay ku ogol yihiin inaad ka bedesho qaabkay u shaqaynayaan hardwareska computerku.
kani waa tusaale uun balse waxaa samayn karta waxyaabo badan oo advanced ah sida kernel compiling iyo kuwayo kale muuqaalkan waa inta sawirkeeg yahay kuwasan daawasho muuqaalkan fadlan ha ilaawid inaad muuqaalka laga saarto siina sheeg garayso si uu gaaro saxaab badan mahadsanid